waa maxay teknoolojiyadda khatarta leh ee hadalhaynta badan ka dhalisay caalamka? Deepfake has many possibilities. Deepfake dangers of Deepfake. I am not Morgan Freeman. What you see is not real. Well, at least in contemporary terms, it is not. What if I were to tell you that I am not even a human being? Would you believe me? What is your perception of reality? Is it the ability to capture, process, and make sense of the information our senses receive? muuqaalkan waa mid been abuur ah oo laga sameeyay jiraaga caanka ah ee Morgan Freeman. sidoo kale waxaa muuqaal been abuur ah laga sameeyay Tom Cruise oo ah isna jiraa ka tirsan Hollywoodka. haddaba waxaan sharaxaad kooban ka bixin doonaa teknoolojiyadda deepfake iyo sida ay u shaqeyso. Deepfake waa nooc ka mid ah artificial intelligence taas oo loo isticmaalo in lagu abuuro sawirro, codad iyo muuqaalo lagu qanci karo oo been abuur ah. kelmadda deepfake waxaa laga keenay isugeynta deep learning oo ah qayb ka mid ah machine learning-ka iyo kelmadda fake oo macnaheedu yahay been abuur. Deepfake waxaa lagu sameeyaa laba artificial intelligence algorithms oo kala ah generator iyo discriminator, kuwaas oo u shaqeeya qaab cagsi isku ah si ay u sameeyaan shabakad iska soo horjeeda. Generator-ka waxa uu abuuraa dhacdada been abuurka ah, halka discriminator-kuna uu xaqiijiyo inay xaqiiq tahay iyo inay been abuur tahay. si loo sameeyo muuqaal qofeed oo been abuur ah, waxaa marka hore tababar la siinayaa shabakad neural ah saacado badan, iyadoo shabakadda la barayo muuqaalka dhabta ah ee qofka si uu garasho qoto dheer u helo sida qofku u ekaanayo marka laga fiiriyo dhinacyo kala duwan iyo iftiin kala duwan. waxaana shabakadda la tababaray la sii kaashanayaa farsamooyin garaafeedka kombiyuutarka si loo soo saaro muuqaalka qofka oo been abuur ah la saarayna jilin kale. Deepfake waxaa inta badan loo adeegsadaa marin habaabinta bulshooyinka inta lagu guda jiro ololaha doorashooyinka. sidoo kale waxaa lagu sumcad dilaa dadka caanka ah iyadoo la sameynayo muuqaal anshax xumo ah ama jinsi ah oo been abuur ah. si loo yareeyo khatarta teknoolojiyaddan ayaa shirkadda Google, FB, Microsoft waxay iska kaashanayaan qaab looga hortagi karo laguna aqoonsan karo nuqulada lagu abuuray teknoolojiyaddan.